soo dhawaada asxaabta dadka maanta ugu maalqabaysan waxa ay lacagta ugu badan ka helaan dhanka shirkadaha tiknoolajiyadda iyo warshadaha sida Jeff Bezos, Mark Zuckerberg iyo kuwa kale oo badan. Haddaba maanta waxaan idiin soo gudbinaynaa inagoo eegayna dadkii hore ninkii ugu hantida badnaa dunidan. intaan guda galin haddii aad ku cusub tahay channelka maanta subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo share gareynaya muuqaalkan. ku soo dhawow shirkadda adeegyada tiknoolajiyadda ee Yoltech. waxaa hadda si fudud ugu soo wareegi kartaa web hostingka Yoltech iyadoo dhammaan xogta website-kaaga iyo emailadaada lagugu soo wareejin doono si bilaash ah. ka mid noqo kumanaanka macaamiil ee ku faraxsan adeegeena. wixii faahfaahin dheeraad ah nagala soo xiriir nambarada ku muuqda iyo emailka. Yoltech u helan macaamiisheeda. Mansa Musa waxa uu dhashay dalka Mali. ma ahayn kaliya ninka ugu taajirsan Mali ee waxa uu ahaa ninka ugu taajirsan taariikhda adduunka. way adag tahay in faahfaahin dheeraad ah laga helo Mansa Musa maxaa yeelay xilligii uu tarinayay ayaa ahayd qarnigii 14aad. laakiin inta xaqiiqda ee laga hayo ma ahan mid ka soo jeeda qoys boqortooyo ee waxa uu ahaa ku-xigeenka boqorkii Mali ee lagu magacaabi jiray Abu Bakar Keita oo ahaa boqorkii labaad ee dalkaas. waxa uu geeriyooday boqorkaas kadib markii uu safar u aaday badda Atlantic dibna uma soo laaban. sida uu dhigay sharciga boqortooyada haddii uu geeriyoodo boqorka xukunka haya waxa ku wareegaya xukunka boqortooyada ku-xigeenkiisa. sidaas ayuu ku fadhiisay Musa kursiga xukunka ee boqortooyada. xilligii uu qabtay talada Musa ayaa ahayd sanadii 1312 xilligaasi oo dadka da'da dhexe tiradoodu hoos u dhacday halka qaaradda Yurub la isku leynayay ee ka jirtay macluul aad u daran. isla waqtigaasina waxay ahayd waqooyiga Afrika mid ay ka jireen warshado ganacsi. waana xilligii uu qabtay xukunka Musa isagoona qaaday talaabooyin wax ku ool ah oo lagu adkeynayay dhaqaalaha gobolka. midda kale Musa ma ahayn mid fursad gaad ah ee kursiga waxa uu dhaxlay isagoo leh hanti aad u badan oo dahab ah. qaasatan dahabku waxa uu ahaa mid ka buuxay dhulka Mali. waxa uuna si fudud ugu guuleystay inuu noqdo ganacsade weyn. waxa uuna ka ganacsan jiray dahabka Afrika iyo Aasiya isagoona lahaa awood aad u badan. waxa uu ka aasaasay ganacsiga magaalada Timbuktu ee dalka Mali. gaadiidka xilligaasi lagu safri jiray waxa uu ahaa geela isagoo oo lagu qaadi jiray dahabka iyo waxyaabaha kale ee macdanta. halkii geel ah waxa la saari jiray 20 pound oo dahab ah iyo macdan kale. magaalada Timbuktu xilligaasi waxa ka jiray ganacsi aad u xoogan. Musa ganacsigaasi waxa uu ka helay dhaqaale aad u badan isagoo ka dhisay magaalada dhismayaal cajiib ah oo uu ka mid yahay masjidka la yiraahdo Dijen kaas oo muhiim u ah muslimiinta. waana masjidka nashqada loo dhisay la iskugu keenay injineero badan oo wax nashqadeeya. ugu dambeyntiina waxa ku guuleystay nashqadeynta masjidka ninka lagu magacaabo Sudana Sahelian oo Musa uu ka keenay koonfurta Spain. injineerkaas oo dhisay dhismayaal badan. laakiin ka hor Musa intuusan ka gaarin guusha dhismayaasha cajiibka ah ee uu ka dhisay magaaladan waxa uu guul weyn ka gaaray xukunkiisa dhanka diblomaasiyadda isagoo isticmaalaya awoodda jilicsan kuna ballaariyay boqortooyadiisa iyadoo aysan wax dhiga ku daadanin wadamada kale ah sida Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea, Burkina Faso, Mali, Niger, Nigeria iyo Chad. waxa uu xukumayay boqortooyada muddo 25 sano oo kaliya isagoo oo qabtay xukunka sanadii 1312 kana digay sanadii 1337. xilligaasi boqortooyada dhulkii ay ka arriminaysay ee Mali waxa ku soo saaciday 3 ujibaar dhulka weynkii ay ka talin jirtay. Musa boqortooyadiisu waxay xoog saartay dhanka dhaqaalaha isagoo kala kulmay cadaadis kuwa xukunkiisa ka soo horjeeda. mana ahayn mid ka fogaaday inuu isticmaalo awood cidii ka hortimaada amarkiisa isagoona samaystay military aad u xoogan. isagoona markii dambe weerar ku qaaday 24 magaalo oo waaweyn lana wareegay. weligiisna kuma guul dareysan dagaal uu galay isagoona ka helay isbalaarintii uu sameeyay hanti aan caadi ahayn. intii u dhaxaysay sanadii 1313 ilaa 24 waxa uu ahaa mid waxbarasho ku jiray isagoo oo baranayay diinta Islaamka halka diinta Islaamkana ay farayso qofkii hanti haysta ay ku waajibayso inuu soo xajiyo. sidaas darteed Muuse waxa uu go'aansaday inuu galo safar dheer si uu u soo xajiyo xilligaas oo ay cimiladu ahayd mid aad u adag in lagu safro isagoona go'aansaday inuu jaro masaafo dhan 4000 oo mayl. mana ahayn mid kaligii safri jiray ee waxa uu wadan jiray kumanaan gaadiid iyo rag iskugu jira isagoo isku duway gaadiidkii ugu badnaa ee qof taariikhda uu ku safro. waxa uu la doonayay in uu tago Makka isagoo soo xajiyay intii u dhaxaysay sanadii 1324 ilaa 25. ragga la socday tiradoodu waxa ay gaaraysay 60,000 oo askar ah. sidoo kale waxa kamid ahaa dadkii la socday 12,000 oo addoomaa. mid kasta oo kamid ah waxa uu sitay
4 باون oo dahab ah muusana waxa uu ahaa mid lagu waday fardo halka uu isaga bixinayay masaariifta ragga la socday iyo xoolahaba safarkaasi geela uu watay waxa uu ahaa 80 isagoo kiiba waday 50 ilaa 300 oo باون oo dahab ah waxa uu ahaa mid siinayay dahabka dadka danyarta ah mana ahayn mid siin jiray kaliya magaalooyin qaas ah ee waxa uu siin jiray dadka ku nool Qaahira ilaa Madiina magaalooyinka uu marayay Muuse waxa uu ahaa mid jimco kasta dhisa masjid sida ay sheegeen xubnihii la shaqeyn jiray waxa uu ahaa shakhsi deeqsi ah laakiin ninka lagu magacaabo Milyan waxa uu ku doodaa in Muuse u qaadi jirin cuntada iyo qalabka kaliya dumar addoomaha oo u qaas ah oo xirta dharka Yemeniyiinta Muuse waxa uu ahaa mid caan ku ah in uu booqdo madaxda isagoo la kulmay ninkii xukumayay Masar xilliga wuxuuna Masar uga sii gudbay Makka dahabkii uu dadka masaakiinta u qaybiyay waxa uu Masar ku kalifay in qiimaha dahabka hoos u dhaco muddo 2 sano markii hore boqorka Masar iyo isaga heshiis ganacsi kama dhaxeen laakiin markii uu soo laabtay Muuse kama labalabayn in uu la kulmo boqorkii Masar markii uu yimid ayuu arkay dad boqorka Masar lugaha ka shuminaya uuna ka carooday kulankii uu la kulmi lahaa laakiin dib ayaa laga raali galiyay Muuse waxaana dhex maray boqorkii Masar iyo isaga ganacsi Muuse waxa uu Egypt ku yeeshay dhaqaale aad u badan isagoona markii dambe ka qayb gali jiray kaliya shirarka arrimaha diinta looga hadlayo waxa uu ahaa mid dahab ku sadaqaysan jiray dadka danyarta mana ahayn mid dhaqaalihiisa burburin jiray ee deeqsi ayuu ahaa waxa uu safarkiisa u badnaa jiray magaalooyinka Qaahira Madiina iyo Makka oo ahayd halka uu ganacsiga ka sameyn jiray waxa uu noqday ninka kaliya ee maamulay suuqyada dahabka ee adduunka wuxuuna ahaa mid xoog saari jiray dhanka diinta dadkii adoomada u ahaa ayna ka qayb qaatay koritaanka dhaqaalihiisa Muuse markii ugu horeysay ee uu tagay Makka waxa uu ka soo waday aqoon-yahano iyo injineero xilligaasi oo uu doonayay in uu ka bilaabo waxbarasho boqortooyada Mali isagoo ka dhisay magaalada Timbuktu jaamacadda la yiraahdo Sankore taasi oo lagu baran jiray culumta sharciga tan xidigaha iyo xisaabta isagoona uga keenay jaamacadda dhammaan Afrika aqoon-yahanada muslimiinta iyo kuwa uu ka keenay bariga dhexe isagoona bil ka bacdi sare u qaaday tayada jaamacadda iyo shaqaalaheeda una sameeyay maktabad aad u weyn dhammaanna ka soo aruuriyay Afrika buugaagta cilmiga jaamacadda Sankore waxa dhiganayay 25,000 oo ardaya maktabadeeduna waxa ay noqotay mid ugu weyn dunida taas oo ay yaaleen buugaag aad u badan Muuse waxa uu caan ka ahaa galbeedka Afrika waxa uu ganacsigiisa gaaray Yurub ilaa bariga Aasiya isagoona ku guuleystay ganacsigiisa walina kalama kulmin wax caqabad ah boqortooyadii Muuse waxay ahayd mid adag isagoona ahaa dagaalyahan laakiin dalkii Mali ay ka tirin jirtay boqortooyada awoodda lahayd waxa imaaday gumeystihii Faransiiska waxa uu ka faa'iideystay oo urursaday kheyraadkii Mali waxa uu ka dhigay dal faqiir ah ilaa hadda Mali waxa looga hadlaa luqadda Faransiiska Muuse waxa uu ahaa maalqabeen dhaqaalihiisa markii la qiimeeyay waxa uu noqday wax aan la rumaysan karin isagoo ay hantidiisu gaartay 400 oo bilyan waayahan dambana ninka ugu hantida badnaa waa Jeff Bezos oo ah ninka iskale Amazon waxayna gaartay lacagtiisa 190 bilyan isagoona ka sameeyay lacagta tiknoolajiyadda iyo ganacsiga online-ka taasina waxay ku tusaysaa taariikhda in uusan jirin shakhsi ku gaaray hanti Muuse ninka kaliya ee soo dhaweynaya waxa lagu magacaabaa John Rockefeller kaasi oo hantidiisa ay gaarayso 340 bilyan waxaana noqonayaa ninka labaad ee ugu taajirsanaa dunidan Muuse waxa uu ahaa shakhsiga ugu hantida badan adduunka ee taariikhda soo maray waxa uu ahaa nin howlkar ah lahana hal abuur waxa uu haystay awood military mana jiro ilaa hadda cid jabisay rikoorkiisa isagoo noqday ninka adduunka ugu taajirsanaa ee taariikhda soo maray waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay channelka maanta subscribe si ay ku soo gaaraan muuqaalada cusub hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo share garanaya muuqaalkan mahadsanidin